انصر بالصلاة على محمد وردد قولها في كل ذكرى فمن صلى على طه صلاة يصلي عليه رب الملك عشرا. sidaan u soo sheegnay asalkii ama tacriifkii oo aynu ku sheegnay cunfiga waxaan hadda u guuraynaa waa saddex qodob sida inta la isiiyay waxaa weeyaan xagee muxuu ahaayay xagee ka yimid yaasa wada cunfigan sidiisaba gacanka hadalkan iyo muxuu aga jugleyntan iyo qalqalafsida nadan iyo xaq jiranimada yaa wada waxaa weeye waxaa ku kacay sidaas oo ay asalkeeda ka soo bilowatay dawladda Masar iyo dawladda Algeria Pakistan Afghanistan Soomaalina way soo gashay marka kooxaha maxaa la yiraahdaa marka waxay isku magacaabeen ilaan cid u bixisama la yaga la baxay moogtahay jamaacatul jihaad way isku magacaabeen waan jihaadayna yani وما بحوم إلا جهاد وجهاد وذروة سنام الإسلام يا سلبوا جهاد ويا ماشي وفير سؤال شو ماشي كتاع انتهي معها جهاد هذا وحضرك ها جهاد كيف على جيلي وجهاد كيف يجيلين وهي بالجهاد كيف وكهري هو جهاد كواي هاي ومسلمين قال مسلمين عن قمادنا يا جهاد مرك يا أكثر جماعات كا محل يرادا جماعات الجهاد ولا والجماعة الإسلامية ويسكون مجعابان مركز سيدا يراهدان أحاديث النبي uu sheegay oo dhan yay kooxda yar ee faraha lagu tiriyo ay isku dabaqayaan marka oo nabigeena kaleey salaatu wasalaam isagoo u jeedo muslimiinta oo dhan iyo wuxuu oranayaa jamaacada islaamka qofkii muxuu ka baxo oo dhinto isagoo oo jaahilu dhimanaya muxuu qofkii ka baxo faqad khala'a ribqata al-islam an unuqihi islaamki wuu ka siibtay kuwa isku magacaabo intooda kooxdooda qofkan ka tirsanayn islaamka ma tirsano ama waxa la yiraahdaa kale as-salafiyya al-jihadiyya salafi oo jihada maxay tahay salafi jihad marka jihad waa soo aragnay Soomaha waxa weeye kooxda oo wahabiyada madhabkan Maxamed ibn Abdul Wahhab kuwii taabacsanaba laba u qaybsamay kuwa la yiraahdo salafiyya jadiida oo dawladaha iska raacsano kuwaasaa roono quman oo le war dadka aan la dilin dadka la iska daayo iyo kuwa le may waxbaan jihaadayna America iyo maxaa xumaladiisan ka hortagaynaayo kuwaasaa loo bixiyay maxaa yeelay marka la yiraahdo salafiyya jihadiyya markii la yiraahdo waxa halka ka soo baxaya salafi aan jihaad ahayn kuwa salaf ah oo aan jihaadaynin yaa meeshii ka soo bixi waxa mafhuum iyo mantuuq baa la yiraahdaa marka salafiyya jihadiyya hadaad aragto waxa weeye حركتي محمد بن عبد الوهاب وأن لقوا أقونين إنه هب قاطان يا مركي محوها يا أفغانستان جهاد كذي وحي كدم بي أي هب قادين مركا كواس ويان سلف عداد مغشو مركا مذهب كحنبلي جاء أي وحي لبحن إلى السلفيين مركا حنبلي يا وهابيو يا سلفيو وصدح مقع هل قف كدحيوي سلا مركا وإن لو قال السلفية الجهادية أو الجماعة المسلمين كوانا waxay isku magacaan جماعة المسلمين marka horta dadkaas weeye xagay ka timin marka gacanka hadalkan juduur baa la yiri xididahooda xagay xididaha ku hayaan juduurta ay ku hayaan waxa weeye juduur aslafi min al-khawarij khawarijta ay ku abtirsadaan ragaasi maxaa yeelay culimadu way hadleen maalin dhawaad waa kan idin sheegay kitaab la yiraahdo الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم من عالم أولي بدتك مجددين تلقوا تريو ولينا الأستاذ عبد القاهر البغدادي أيا اسكال كتابك محوليه مركة أول من أطلق على كلمة الشرك أو الكفر على المسلمين هم الخوارج يعني الروح مسلمة ولا إله إلا الله محمد رسول الله له oo aadaamayo oo aqimayo oo xajinayo oo soomayo oo guursanayo oo garabkaaga ku tukanayo garabkaaga oo hadana mushrik la leeyahay oo hadana kaafir la leeyahay xagay ka timid khawaarij baa keentay waxa wa khawaarijtun xagay ka timid khawaarijtu waa kuwii nabi maxamed yiri nabi maxamedow caadil ma tihide
garsoor samee saad u ogaatay yani marka alimaam alqardaawi wuxuu ku magacaabay inuu yahay waxani marad oo fikri ah waa jiro waaye maaha caafimaad ma aha u qaadanina maxaa le qofka odhanaya nebi maxamed cadaalad samee muxuu yidhi nabigeenna khibta wa khasirta waad hoogtay oo waad khasaartay man yacdil in lam yacdil rasuulu llahi in lam yacdil illaahu wa rasuuluhu ilaahay iyo rasuulkiisa haddayna caadilnimo samaynin bal cidda caadilnimo samaynayso oo ninkaa dulkhuwaysiro la yidhaahdo ay ka beermeen nimankan oo juduurta ah ma isagaa caadilnimo samaynaya marka taas horta juduurti waa halkaa waa in nebi maxamed la tuhmo oo la yidhaahdo inahaa qismatun maa uriida bihaa wajhullah waa wax qaybin aan ilaahay loola jeedin ilaahay dartii ma aha ilaahay laisku oohiyo oo magaciisa dadka lagu gowraco halkaasay ka soo bilaabatay yani ha u malaynina wax maantiiyo shalay yimid marka sidaa daraad horta juduurtii waa halkaas oo muxuu ahay min alkhawaarij aladiina waan arki doonaa marka khawaarijta maxay sameeyeen waxaa weeyaan kafaruu caamata almuslimiin muslimiintao dhan waxay dhaheen waa gaalo muslimiinta iska dhaafe wa kafaruu amiira almu'miniina caliya bna abi aalib cali ibnu abi aalib oo aad ogtihiin in la yidhahdo karama allaahu wajhahu oo uu maxaahi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam gabadhiisa uu u guuriyey oo aalabeyd oo dhan ay ka farcameen nimanka oo salaada fajriga u socdo oo weliga aan sanam u sujuudin oo gaalada gacanta u geystay aad ogeydeen oo la yidhaahdo farisu lislaam wabnahu lbikru la yidhaahdo waa nimanka muxuahay banaystay sidaa daraaddeed waxaa weye wastaxalluu damahu wa dimaa'a almuslimiina macah wasaxat alaxaadiiثu fii damihim min 10 awjuh kama qaala alimaamu axmed ibnu xambal alimaam axmed ibnu xambal wuxuu yidhi 10 oo muxuahay jid axaadiis ku soo aroortay ayaa nimankaas cayday waxaa ka mid a axaadiista oo ku tilmaamayso yaxqiru axadukum salaatahu ilaa salaatihim wa qiyaamahu ilaa qiyaamihim wa qiraa'atahu ilaa qiraa'atihim yaqra'uuna waxaa weye qur'aanka way aqrinayaan laakiin xanaajirtooda ma dhaafayo waxaa weye nimankaas ma aha inayna cibaadaysanayn ama ay diin jeclayn ama saas oo kale haba weynuusa soo qalloocinayaa wuu khushuucayaa wuu oynayaa nebi maxamed baana sheegay laakiin wuxuu yidhi oo adiga salaadaada way kula yeelaan oo soonkaagaa kula yeelaan oo salaatuleylkaadaa kula yeelaan laakiin dhuunta u dhaafi maayo muxuu ahay qur'aan diintana way ka baxayaan kamaa yamruqu sahmu min alramyati marka la toog dhiganayo sida leebka uu waxa lagu dhufanayo uga baxo ayay diinta uga baxayaan laa yujaawizu xanaajiruhum diinta xanaajirtooda ma dhaafayso waxaa loo jeedaa lam tadkhul ilaa acmaaqi quluubihim quluubtooda hoos uguma dhaadhicin wa cuquulihim liyafqahuuhu xaqa alfiqhi diinta islaamka si fiican uma fahmin oo marka ay aqoonsadaan calaa asraarihi wa maqaasidihi taas marka laguma hayo maadaama ay sidaa tahay waqad addaa bihim hada alfiqhu alacwad ilaa istibaaxati almuslimiin alaakhariin wa amwaalihim xata istabaaxuu dama faris alislaam wabnihi albikri caliy bna abi aalib karama allaahu wajhahu si aad u yaabtaan dhegaysta haddaba waxaa weeye waad ogtihiin sayidina cali ibnu abi aalib isagoo salaada fajriga u socdo ayaa cabdiraxmaan ibnu muljim ayuu dilay nabigeennana calayhi salaatu wasalaam wuu ku tanabu'ayoo wuxuu yidhi dadka waxaa ugu shar badan nebiyullaahi saalix hashiisii kii gowracayee dilay kow dheh sayidina cali oo nool iyo kan caliyow halkaa kugu dhufan doono ilaa dhiigu halkaa uu ka daato garhkiisa sayidina cali oo salaada fajri u socdo yoo ninkaas khawaarijta ah
ayuu madaxa faas kala dhacay halkaasuu ku dhintay qofka salaada subax tukanaya waad ogtihiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man sallaa salaata subxi fa huwa fii dimmati illaahi ilaahay ammaankiisu ku jiree falaa yadlubannakum fii dimmatihi ilaahay yuuna idinka doonin maxaa le qof xoog badan ama dowlo ama nin dad ka dambeeyaan qofku ammaan geliyo qofkii far saaro inuu aargudi baa la og yahay ilaahay qofku ammaan geliyo qofkii far saaro maxaad u malayn marka sidaa daraaddeed hadda maanta waad og tihiin waxaa waddankeena meel walba ka dhacayo war gaalku salaad badana bannaankaa loo taagaya masaajidka bannaankiisaa lagu sugi qofkii waa waxaa ma ogaba in la dilaa la rabaa ma ogta wuu iska tukanayaa qofkan wuu ducaysanayaa iyaguna bannaankay u taagan yihiin war gaalku salaad badana way dhacday waddankeena ka dhacdoo la hubaa hadda marka fiiri gaalku salaad badana ma fasiri karta aduu gaalku salaad badana marka sidaas weeye markii sayidina cali ay dileen mid oo ka mida gabayaagoodii baydadkan uu tiriyey kii cali dilay cabdiraxmaan ibnu muljim ayuu ammaanaya dhegaysta si aad ogaataan mucjizada adduunkan ka socoto wuxuu yidhi yaa darbatan min taqiyin maa araada biha ilaa liyabluga min dilcarshi ridwaana saasuu leeyahay waan fasiri doonaa inii la adkuruhu disho ood wax qarxiso oo dad gowracdo ood saas laguguma garaabayo laakiin waa shay oo muxuu ahaayey kow kan ugu horreeya waxaa weeye takfiiru alxukuumaati alqaa'ima xukuumaadkaa horta la gaalayn oo maxaa loo gaalayn iyaga naftooda waxaa iyagaa sabab ahoo diintii ilaahay ayay dabaqi waayeen marka aayadihii qur-aankood garanaysaan oo suuratu lmaa'ida iyo suuratu nisaa iyo oo la inoo akrinayay sheekh cabdiraxmaan uu inoo akrinayay shareecada tadbiiqeeda marka laga sheekeynayay tii bay horta raggan u akrinayaan oo kuma odhanayaan anigu wallaahi qardajeex baan nahay kuma odhanayaan waxay ku odhanayaan waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun soo qur'aan maaha haa waa qur'aan waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum aldaalimuun soo kitaabki ilaahay maaha wuu yahay waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alfaasiquun oo soo aayad maaha haa wuu yahay oo hadde maxaad u diidi marka kuwan waa gaale maxaad rabtaa falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima war soo qur'aan ma aha maxay u fulin laayihiin halkaa markay marayso culimmadu waxaa weeye hadday dowladdu diinta fulin waydo fiqhi dhan baa laga muxuu ahaaye ayaa laga dejiyey oo kutub la yidhaahdo muxuu ahay alaxkaam asharciya oo ibnu taymiya uu alifay oo maxaa imaam maawardi oo shaaficiya uu alifay oo abulyacla almawsili oo xanaabila uu alifay culimadoo dhan ayaa aliftay alkharaaj ayaa la alifay marka waxaa weye culimada waana la ishaarin waktigaan ogolaanaynin ma og tahay aayadahan aayado weeye laakiin horta qofkan muxuu la fulin layahay aayadahun baa la fiirin ha qaar hadday yidhaahdaan waana run qaar waa gaalo iyaga hadday maya qur-aankan aad sheegaysaan waktiga lama socon karo berigii jaziira carabiya owrta la raaci jiray lidakari mithlu xadi lunhayayni maya taasu cadaalo ma aha hadduu kaa la kaco waa gaal isagoo gaala yaa waxaa la dhihi inaan la dirirno iyo inaynan la diririn kee fidno badan waa gaal maba diidaninba laakiin haye ma la diriraynaa mise si uuna noo halaagin waan iska gabanaynaa yani waa taas weeye ama wixii ka soo haray hadduu maxaa ahay uu ka tegayo xukunka ilaahay waxay culimmadu yidhaha waa camale caqiide ma aha sida salaada iyo soonka iyo zakada iyo xajka intaasi qofka hadduu xalaashado waa gaal laakiin hadduu dhihi ilaahay hay soo hanuun war maa tukatid mayo maradaa iga nijaasa may ilaahay hay soo hanuuniyo waan tukan doonaay culimmada intooda badan waxay dhaheen xataa haddii la icdaamiyo la dilo waa lagu tukanayaa waa la maydhayaa waa la kafanayaa muxuu ahaayey waxaa lagu xabaalaya muslimiinta qubuurtooda waa la dhaxlayaa saasay yidhaahdeen marka yaanan ku dheeraanine waxaa weeye waman lam yaxkum ma anzala allahu
culimmada iyo fuqahada waxay yidhaahdeen hadduu cilooyin oo hadda inta badan oo ka mid a madaxda waxay ku oranayaan wallaahi cadaadin baa nahayso oo dhaqaalaha nalalaga dirirayaayo maxaan samaynaynaa haddii maxay diinta aan iclaamino waa nala cunaqabat